بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Axmed Caynab oo caawa inoo daadahin doona barnaamijkeena Dood Wadaag oo ay marti inoogu yihiin madasha Daljir. haddana waxaan kusoo dhaweynayaa gudoomiyaha madasha Daljir Abuukar. Caynab iyo dadka barnaamijka soo diyaariya aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin inaad soo diyaarisaan barnaamij noocan oo kale ah oo aad iyo aad loogu baahan yahay. wax yar haddii aan ku sameeyo guudmar madasha Daljir. Daljir ilaa iyo muddo ayay soo jirtaa, waxaana u malaynayaa dadka intiisa badan inay ka warhayaan. waxaa loo sameeyey ujeedooyin dhowr ah oo markaan aragnay waxyaabaha shacbiga Soomaaliyeed qayb ka mid ah haysta oo ah in qof walbo inuu soo dhageysto raadiyaha reerkiisa, idaacadaha ama maxaa la yiraahdaa warbaahinta reerkiisa, oo uu la soo fariisto reerihiisa. markii uu yimaado meelaha tiim hortanka la isugu yimaadana qof kasta inuu u yimaado inuu difaaco wixii uu ka soo dhageystay, macnaha bulshada isaga uu ka tirsan yahay wixii uu ka soo dhageystay inuu mar walbaba difaac uu meesha u yimaado. marka dadkii muddo badan iyagoo fadhiya laakiinse waxba aan la kala faa'iideysan. marka waxaan isnira ma dhici kartaa in la helo madal ay dadku fikrado kala gedisan ay isdhaafsadaan, dad kala gedisan inay isku yimaadaan, oona lagu casuumayo niman aqoon-yahano ah oo mararka qaarkood kasoo sameeya daraasaad fiican, kasoo sameeya mawduuca laga hadlayo. marka sida loo kala faa'iideysto meeshaas ku noqon waxaa tidhaahdaa hadhow la degreena mugta niman aqoon-yahanaha orin waxaa tidhaha siyaasiyiin Soomaaliyeed rag dumar noqon karaan. dad aqoon-yahano ah, siyaasiyiin ah, macnaa bulshada qaybaheeda kala gedisan, culamaa u diin ah, si ay u noqoto meesha meel lagu kala faa'iideysto. taas ay ahayd qodob ka mid ah oo loo aasaasay madasha Daljir. waxay kaloo ahayd in haddii ay dhibaatooyin wadanka Soomaaliya laga soo sheego inay macnaa u kacaan oo ay wax ka qabtaan dhibaatooyinkaas jira oo meelo badan daadadka iyo meelo fara badan iyo dhibaatooyin soo dhacay, abaaraha iyo inay aad u istaageen, ama iyagoo hogaaminaya ha noqoto ama iyagoo qayb ka ah bulshadii wax waday ay noqoto. marka qodobadaas iyo qodobo la mid ah ayaa waxay u aasaasantay madasha Daljir. madasha Daljir aasaaskeeda ilaa iyo hadda waxay ka kooban tahay 5 qofood oo 4 ka mid ah caawa ay nala joogaan. mid ka mid ah mas'uuliyiinta Daljirna oo caawa ay u suurtageli weysay inuu meesha nala joogo. marka intaas ayaan rabaa inaan kusoo koobo madasha Daljir waxa ay tahay. waana mahadsantihiin. waa mahadsantahay Abuukar. kulmi maxaad ku dari lahayd? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Caynab waa mahadsantahay. waxaan rabaa inaan kala mahadceliyo Dood Wadaag iyo shaqaaleyda sharafta leh. Abuukar ayaa runtii xogtii sheegay. waxaan ku dari karaa baa wax iska yar. aasaaska madasha Daljir runtii sababihii loo abuuray iyo hadafkii laga lahaa Abuukar ayaa sheegay in maaragtay ummadda Soomaaliyeed loo soo casumo dadkeeda hal doorka ah oo rag iyo dumar isugu jira waxa la iyo wixii maaragtay intii suurtagalka ah si markaas ummadda Soomaaliyeed loogu soo bandhigo xogta rasmiga ee jirta haddii aan lahayd dhanka siyaasadda iyo haddii aan lahayd dhan walba haddii aan lahayd. marka
runtii waxyaalo badanna waa qabanay marka laga yimaado shakhsiyaad badan oo bulshada waxtar u leh oo lasoo casumay in aan dhaqaalo badan aan ugu deeqnay inaan dhaqaalo intaan aruurino ama aan maaragtay qayb ka noqono abaaraha dalka aafeeya sidii aan qayb uga noqon lahayn annagoo dhaqaalo u aruurinay gobollo badan waddan ka mid ah iyo weliba xeryaha qaxootiga soomaaliya ama soomaaliya dabadeeda ah marka runtii intaas ayaan kusoo koobi lahaa waxqabadka iyo sababtii loo asaasay madasha daljir mahadsan tahay kulmiye xasan adigana balan waa mahadsan tahay Aynab iyo dadka soo abaabulay arrintan iyo cameramanka ninkan oo barnaamijkan soo dubraday waxaan leeyahay horta saaxiibaday ayaa marka hore si fiican uga hadlay taariikhda iyo asaaskii waxaan rabaa inaan ku daro kaliya waxyaabaha aan qabanay waxay ahaayeen wax specific ah maadaama Soomaaliya ay qaadatay federalism waxaan keenay speaker oo ka hadla amba ku takhasusay wax federalismka uu yahay sidoo kale su'aal is weydiiyay oo ayadana nagu soo noqotay ayaan waxaan u keenay ambassadorka Soomaaliya u fadhiyay UN oo ka hadlay international community-ga iyo shaqada ay ka qabtaan Soomaaliya faa'iido iyo dhibaataba waxa ka imaanaya oo si fiican uga faahfaahiyay sidoo kale waxaan u aruurnay sidii hore loo sheegaba abaarihii ka dhacay Soomaaliya lacag loo ururiyay iyo sidoo kale fatahaadii webiga oo asagana aan u aruurnay intaasoo dhaqaale ah madashan waa madal siyaasadaysan ma aha waa mid platform ah oo loogu talagalay dadka meel kastoo ay joogaan oo Soomaali ah oo siyaasiyiin ah amba aqoon-yahano ah inay inta yimaadaan fikradooda looga dhageysto dadkana ay u faahfaahiyaan waxyaabaha ka jira Soomaaliya gudaha iyo dibaddaba barnaamijkeena caawa waxa uu ka kooban yahay laba qaybood laba su'aalood ayaan barnaamijkeena ku soo koobnay in caawa lagaga doodo halkan labada su'aalood oo ah su-aasha ugu horeysa oo ah abaaraha iyo fatahaaddu way isdhinac socdaan labadaba waddanku way aafeeyeen khaasatan abaaraha baan aad uga hadli doonaa iyo barnaamijka qaybtiisa ugu dambeysa oo ah doorashada saan ognahay waddankeena doorasho ayaa kusoo food leh aragtiyo kala duwanna waa laga baxshay marka waxaan rabnaa madasha daljir bal ogaanshaheeda iyo wixii faahfaahin ay naga siin karaan iyo siday u arkaan labada arrimoodba marka hore aan ku horeysiiyo Abuukar oo dhinacayga fadhiya arrinta abaaraha waa inagu soo noqnoqotay dadka qaar waxay uga hadlaan dadka qaar baa yiraahdaan man made wax la yiraahdo dadka qaar waxay yiraahdaan abaarahani waa laga dambeeyaa oo markii dadkii dalagii u soo go'aan WFP ga ayaa raashin dul keento dadkii marka niyadii baa ka jabto abuurkii xataa way iska daayeen dadna waxay yiraahdaan abaarahani waa xaq Ilaahay bay ka yimaadeen marka bal madasha daljir Abuukar abaaraha bal ka war bismillaahir rahmaanir rahiim abaaraha waddanka aad muddo dheer ay waxaan jiri jireen oo ma aha wax hadda bilowday marka aad dib u fiiriso Soomaaliya dhibaatooyinka oo biyaha mar walba way yimaadaan ama biyo la'aan ama biyo badni marna biyo la'aan ayaa baabi'isa oo abaar oo dhirtii bixid la'aan iyo waxyaabaha marna waxaa dhacda biyihii inay bataan oo ama roob tiro badan ama daadad ama fatahaadda webiyada markaad fiiriso abaartu waa inta waxyaabaha la sheego oo dhan way dhici karaan laakiin horta marka ugu horeyso sababta waxay doontaa ha ahaato laakiin ahaanshaha abaarta inay dhacdo oo inaysan dhicin waxay ku jirtaa gacanta Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa wax laisku tijaabiyo oo Ilaahay uu rabo inaad wax ku qaadato ama isaga aad u noqoto ama maxaa la yiraahdaa inaad maskaxda intaad ka shaqaysiiso aad la timaado waxaani wixii aad uga gudbi lahayd marka abaaraha mar waxaad arkaysaa abaaro waaweyn ayaa Soomaaliya soo maray iyadoo intaan ka xoog badan ka awood badan ka dhaqaale badan
dowlad ka quwad badan ah oo carabaha iyo afrikaba loo istaago ay abaarahan oo kale soo mareen. waxyaabaha lagu soo gudbay waxaa ka mid ah in dowladdu ay lahayd asxaab, ay lahayd saaxiibo iyaga garab taagan. waxaa dhacday abaarihii maxaa la yidhaahdaa dabadheer iyo tii kale oo abaarihii waqtiyadii dowladdii hore ay jiri jirtay, in dad meelaha ay degan yihiin dhibaatada inta macnaa wax laga qaban waayo laga soo guuriyay iyadoo dhanba, in diyaarado military ah oo waaweyn ruushka intuu keeno boqolaal qof iyo guryahooda iyo xoolahooda in lasoo raro meel ay nolol suurtagalka tahay la keeno. sababta abaartu noocay tahay ha ahaato, laakiin ulajeedadu waxay tahay abaarahani siday doontaba ha ku dhacdo, markay abaarta timaado maxaan ka baran karnaa? waxa weeyaan abaarta markay timaado waxbaa laga bartay mar hore. wixii laba waxyaabood ayaa wadanka hadda haysta oo ah dowlad aan awood badan lahayn, labo dowlad saaxiibo badan oo awood leh aanan lahayn, dowlad dhaqaalaheedu uu saa u sii tiro badnayn, iyo ummad isaga dadkii dibaddan ay dadkii macnaa ay la dhaqmi jireen ay naceen iyadoona isnacday. taa waxay keenaysaa inay wax badan qabsan karin, awood u lahayn sidii maxaa la yidhahdaa diyaaradihii oo kale in la keeno oo dadkii lagu soo daadgureeyo, mashaariic loo sameeyo. dadka marka la dejiyo xitaa dad beeraa loo sameeyey, dad kalluumaysataa laga dhigay, mashaariic ayaa loo sameeyey. laakiin awoodahaas ma jiraan hadda. iyadii awoodihii ay jirin ayaa dhibaatadan tusaale haddaan idin tuso oo ah maxaa la yidhahdaa biyaha dadka aafeeyo oo marna biyo la-aanta dhacdo marna biyo baxa dadka ay ku baaba'aan. waxaa jiray maxaa la yidhaahdaa biyo xireen lagu talagalay biyaha markuu barto in la xareeyo. webiga maalan shabeelle oo kale marbuu banooni lagu dhex ciyaari jiray, waana lagu dhex ciyaaraa, waqti horena way jiri jirtay. marka biyahaasi markuu batana biyo xireen ayuu lahaa, markuu yaraadana webiga biyo xireenka biyo laga soo deyn jiray oo dhinaca webiga loo soo celin jiray, oo balance ayaa la samayn jiray oo dhinaca biyaha. waxyaabihii oo dhan ma jiraan. marka taa waxay keenaysaa maxaa la yidhahdaa dhibaato fara badan. waxaan isleeyahay inta kale waxaan u deyn doonaa iyagana wax ku dari doona saaxiibada ila joogo. abuukar waa usoo laaban doona dhankaada. kulmiyo abaarta maxaad nooga sheegi karaysaa? horta abuukar horta wax badan taabtay, laakiin aniga xoogaa waxaan jeclaan lahaa inaan wax yar ku daro. horta dowlad la-aanta ka jirta dalka ama dowladda aan awoodda badan lahayn oo dalka ka jirta, horta dhibaatada abaarta in wax laga qaban waayo horta qayb weyn ka tahay. laakiin haddana waxaa moodaa shacabka Soomaaliyeed inay dhibaatada qayb weyn ka yihiin. مثلا hadda gobolada dhexe ilaa iyo gobolada koonfureed oo dhan dhirta waa la jaraa. dhirtuna waa ogtahay waa qayb ka mid ah nolosha bini'aadanka. meel aan dhir lahayn roob inuu ka da'o waa adag tahay. marka dhirtii oo la gubaayo oo la jaraayo oo la dhoofinayo horta koow waa waxyaalaha ugu weyn oo yacnaa hadda waddankeena haysta. gobolada koonfureed sida jubbooyinka oo kale inta badan abaaraha kama dhici jirin. sababta waxaa waaye waa dhul fertilizer ah oo wax laga abuuri karo, roobna aad u heli jiray. hadda roobka waa yaraadeen, roobka wuxuu u yaraadeen waxaa ka mid ah dhirtii oo la jaray. taas horta waa mid. midda kale haddaan nahay annaga ummadda Soomaaliyeed waxaa moodaa wixii shalay nagu dhacay ee dhibna soo gaaray inaan waxba ka baran. مثلا haddeertaan waddankeena dhibaatada ka dhacdaa waxay noqotay waa too extreme waxaan ka wadaa marna gaaja loo baaba'aya oo abaar xunaa jirta, marna dheregti ayaa dhib keenaysa oo fatahaad baa dhacaysa. صح. macnaha waxaa waye daamiskii oo iyo biyo xireenkii biyaha lagu hayn jiray iyo dowladda iyo infrastructure noocaas oo biyihii lagu keeni lahaa horta ma jiro. marka waxaa waye biyihii khasaaray geynayaan, dalagii oo soo go-ay iyo wixii oo dhan iyo dadkii qaadanayaan waa khasaaro. markii la waayana xoolihii iyo dadkii waxay abaalmaleen iyadoo waa khasaaro kale. marka waxaa moodaa tusaalahan soo qaadanaya dabagaalaha bahalka la yiraahdo ayaa moodaa inuu anaga naga caqli badan yahay. dabagaalaha wuxuu sameeyaa wadamada waa aragtay markii qabowaha jiro lama arka dabagaalaha dhulka hoostiisu galaa, laakiin waqtiga samarka muxuu sameeyaa banaanka soo baxa mirihii aruursadaa. ma fahamtid? mirihii aruursanaya
godkiisu ku aruursanayo winterka dhan arkaysid annaga marka meesha wax ka hadlaan waxaa ka mid ah dadkii waxay og yihiin 3 bilood soo socota maanta inuusan roob da'ayn marka biyihii lama ceel lama qodan biyihii lama kaydsan xoolihii caanihii waa la daadiyay jiis lagama samayn wax si kale looma isticmaalin marka arintaas marka waxay dhib ka tahay dhibaatooyinka markasta nagu soo noqonaya marka aniga fakarkayga marka waxay la tahay in dadka Soomaaliyeed lagu baraarujiyo in waqtiga abaartu aysan jirin ee nimcada iyo barwaaqada la haysto in kayd la sameeyo isku day in alla kaydsado kayd la sameeyo si loogu badbaado waqtiga abaarta waa arrin fiican Xasan horta aniga postgraduate environmental management aan haystaa marka waxyaabaha dhibaatada ku haya Soomaaliya waxaa ka mid ah research laga sameeyay arintaasi horta ma jirto oo la hayo la share gareyn karo صح aad u yartahay haday jirtaan waxaa jira deforestation waxa la yiraahdo oo nabaad guurka markii ay dhirta la jaro in mar walba ay soo badanayso roob la'aanta ay imaanayso kadibna ay keeni karto waxaan ku leeyahay abaaraha ay keeni karto dhinaca kale markii la fiiriyo water management waxa la yiraahdo jira waxa water management ka shaqeeya oo dhul biyahaas u kaydiya markii loo baahdana soo daaya ma jirto صح abuukar iyo aniga ka hadlaynay maanta dawladii kacaanka waxay samaysay oo xilligaas oo adduunka xataa saan uusan u horumarsanayn in ay biyo xireen samayso oo webiga biyo xireen loo sameeyo markii webiga hoos u dhacane la soo daayo biyaha markii uu fataxane la furo si biyaha meel lagu kaydiyo taas waxay ahayd water management ilaa yoomuna hada wax arintaas ka hadlaya amba research ka sameynayna wili maanan arkin tan kale hadii dhibaato shalay kugu dhacday you have to anticipate inaad ka fikirtid waaye tan oo kale ma soo noqon doontaa mase sidee uga badbaadi kartaa marka intaas lafteeda ma la isweydiinayo marka wixii la soo noqonaya marka waxaa la sameynayaa bandage la lagu dhijinaya dhibaatada hadda haysta kaliya la xalinaya marka taasina dhibaato weyn ku keenta Soomaaliya madasha daljir barnaamijka qaybtiisii kale oo ugu dambeysay ayaan hadda gelaynaa su'aasha labaad oo taalla waxa weeyaan haddaan madasha daljir soo hordhigo wadankiisa la socotaan doorasho ka soo socota doorashada siyaabo kala duwan baa looga wada hadlay dadku qaar waxay leeyihiin doorasho dhici mayso dad waxay leeyihiin doorasho dhacayso dad waxay leeyihiin doorashadu ma fiicno oo waxba ka khaldan madasha daljir xagee ka taagtaa arrinkaas wadanka waa sax sida aad tiri waa loo jeedaa laakiin wax cusub ma aha markaad gadaal u fiiriso madaxweynayaashii wadanka soo maray oo dhan markii la gaaro waqtiga kala guurka ah markii la gaaro howlahan oo kale way soo baxaan oo isjiijiidka siyaasadeed maadaama maxaa la yiraahdaa constitutionkii uu dhamaystirneen maxkamad wax kala xugmisa aysan jirin oo constitutional macnaha wax ku kala xugmisa aysan jirin maxaa la yiraahdaa dadkii is-aaminaadoodii dhexdooda ahayd ay aada u yar tahay wadankii oo aanan jirin one man one vote marka waxyaabihii waxa kala celin lahaa maadaama aysan jirin waxyaabahani way dhacaan mar walbaba haddii aad dib u fiirsato dowlad goboleedyadu waxaa dhici jirta inay qaar xitaa ku dhawaaqaan markii doorashooyinka ay soo dhawaadaan in ay ka baxeen ama constitutionka lagu tantay waxyaabahaas oo dhan sanad kasta way dhacaan waxaan taagnaa iyadoo la leeyahay dad badan ayaa bes weeyaan waxa la yiraahdo Soomaaliya niman waaweyn oo siyaasiyiin oo dhahaya waqti aan dowladihii ka horeeyay dowladan Soomaaliya kala go'aysaa dowlada yar yar ay noqonaysaa because waxa weeyaan doorashooyinkii waa lagu ciyaaray arintan way dhacaysaa because mechanismkii waxyaabahan loo mari lahaa oo tiro badan qaarna waa nus qaarna wali ma bilaaban taa marka waxa weeyaan waxyaabahan camal inay dhacayso in la garoosado weeyaan maadaama wax badan oo wixii isku celin lahaa ay maqan yihiin doorasho ma dhacaysaa waa sidoo kale doorasho way dhacaysaa intii la marayaa
waxaan u arkaa aniga waxyaabaha inay tahay fooshi ay dowladnimada maraysa oo mar walbaba caruurta markay dhalanahay xanuun ayaa jiro waxyaabo aan la filanayn ayaa la arkaa siyaabo aan la filinayn wax u dhacaan maadaama mekanismkii dowladnimada aysan dhammaystirnayn wax badan oo aan la filin ayaa dhaco trustii maadaama uu yaryahayna waxaa dhaca mar walbaba isqa qabsasho iyo is-aamini darro laakiin waxaan leeyahay doorasho waa dhici doonta waa mahadsantiin abubakar wuxuu kusoo gabagabeeyey dowladdii oo aan yagleelkeedii weli wax ka dhiman yihiin ayaa dhibaatooyinkan mar walba keena soo noqnoqda xilliga doorashada kulmi maxaad ku daraysaa inuu horta soomaaliya horta soomaaliya waxaa ka socda horta haddii si loo fiirinayo waa joog cayaara ka socota saxanti dhibkan wuxuu ka imaanaya horta kow madaxweynihii meesha yimaadaaba waxa ugu horeysa uu ku fikiraya waxay tahay siduu ku joogaa 4 sano kale waxa uu ka shaqeeyo oo waqtigiisa geliya waxa waaye 4 sano ee soo socota sidee meesha ku sii fadhidaa waxaa meesha ka maqan marka hadafka ah in madaxweynahan la doortay 4 sano uu ka shaqeeyo in 4 sano wadankan uu ka saaro dastuurkan ku meel gaarka ah in la sameeyo maxkamad dastuuri ah ama constitutional court oo ilaa hadda aan jirin dhibka ugu weyn oo iyadana haysto sababta waxa waa sharciga hadii uu san jirin maxkamad hadii san jirin maxkamad dastuuri san jirin sharciga nin walba suura uu akhrisanaya hadda fiir dastuurkeena waxa ku qoran waxyaalo badan oo conditions ku ah maxaad is leedahay oo iska soo horjeeda maxaad haddaan ka joojiyo meeshaas maxaad is leedahay in maxkamad dastuuri la dhiso waa hortaagan tahay wallahi waa iska cadahay taas maxkamad dastuuri in la dhiso waxa waaye sababta madaxweynaha markaas awood haysta ama dawladda markaas jirta ayaa waxay rabtaa sharciga dadka inay iyadu u meeriso waxa iyadu ay sharci u aragto inay sharci ka dhigto haddii laakiin maxkamad dastuuri la sameeyo maxkamad dastuuriga waxa ku qoran waa sharci toosan oo strict ah marka sharciga wuxuu qabanayaa madaxweynihi wuxuu qabanayaa wasiirada qabanaya wuxuu qabanayaa ra'iisul wasaarihi wuxuu qabanayaa golihi wasiirada wuxuu qabanayaa sharci yaqaanadii iyo xildhibaanadii cid kastoo qabanaya sharciga cid ka sarreysa ma jirto marka maxkamadda dastuuriga marka waxay awood u siinaysaa sarreynta sharciga in la ixtiraamo asagana lagu dhaqmo marka مثلا hadda dib yaan u noqon laakiin xasan sheekh oo kale مثلا markuu meesha imaanayay wuu ballan qaaday inuu dhiso maxkamadda dastuuriga laakiin muusa sameyn for some reasons I don't know farmaajo markii uu yimid waxyaalaha uu ku campaign gareynayo waxaa kamid ah inuu wadankan uu dastuurka ku meelgaarka ka saari doono maxkamad dastuuriga uu dhisi doono si hadhow maarta sharciga aan qofba sida asaga uu rabo uusan ugu daalacin ayadana ma dhicin marka taas horta waa dhibka nahaysta kow doorasho ma dhacaysaa mise ma dhacayso aniga shakhsiyan waxaan aaminsan doorasho waa dhacaysaa haba jiitanto laakiin waa dhacaysaa laakiin doorasho noocee dhacaysa waxaa dhacaysa doorasho la isku ma aragtay ilka beelay waxaa dhacaysa doorasho isjiijiid iyo maaragtay muxuu ahaa isha dhib laga soo maray sababtoo ah doorashadii tan ka horeysay xoogaa way dhib badnayd inkastoo maaragtay ay ahayd mid dadban iyada laftigeeda tanna waa dadban tahay laakiin dadbanaanta midaan la socotaa xoogaa waxaa waaye waa wax maaragtay xadkii dhaafi oo loo dulqaadan karin مثلا waxaa waaye saara socotid dadka musharaxiinta qaar oo ama u sharaxan sanad ama u sharaxan aqalka hoose waxay ka qeylinayaan meesha inaan loo ogolayn inay codkooda dhiibtaan ama inay sharaxaan iyaga oo ay ma tartamaan looma ogola marka xoogaa dhinacaas marka culays weyn ka jira marka ma fahamtay laakiin iyadoo kooban doorasho waa dhacaysaa 2022 ayaa dhacaysaa bilaa u horeeya sida aniga aan qiyaasayo laakiin waxaan noqonaysaa mid faraha looga gubtay ilaahay naga badbaadi jirtay waa maasanta xasan su-aal baa taalla uu ninkan soo jeeday ahayd maxkamad dastuuri ah wadanku uma dhisnaa haddii la dhiso sharciga dad badan buu qabanayaa oo madaxweynaha ugu horeeyo saan annaga ognahay madaxweynaha waxaa soo doortay baarlamaanka miyuusan ahayn sharci ilaaliyaha miyuusan ahayn of course baarlamaanka waa inuu u campaign garay miyaysan ahayn marka in maxkamadda dastuuriga la dhiso diin wadii waxaaba marka hore aanan dhisnayn oo aan la dhammaystirin constitutionka wadanka صح mar walba dawladdu oo timaada waxay ku anduconaysaa inuu qabyo yahay صح qof u soo istaagaya oo dhahayana ma jiro
shaqada ugu horeysa markii la doorto waxaa ka mid ah inaan constitutionka marka hore la qabyo tiro la dhameeyo kadibna hay-adihii dastuuriga markaasi si fiican loo aasaaso. hadda problemka ka jira dowladda Soomaaliya iyo confusionka waxaa ka mid ah laba xisbi amba xisbiyo dadka ay kala dooran karaan ma jiro. kow maxkamad ma dhisna. dowlad goboleedyadii waxay leeyihiin nin walba wuxuu is leeyahay aniga arintan rabo ayaan geynayaa dowladda federaalka. marka waxaasoo dhan ayaa isku dhaxayacsan ilaa laga helayo in constitutionka laga soxo dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka ay wax isku raacaan sharci kala celiya oo kala qaybiya oo nin walba xuquuqdiisa siiyo ilaa laga keenayo Soomaaliya sidaanay isku dhaxmeeraysanaysaa mar walbana. maalin walbana in lagu goodiyo ma aha dhibaato dhacaysa waa la isdilaa iyo waa la islaynaa. Soomaaliya dhibaato way ka soo daashay hadda kadibna diyaar uma ahan. waxaa la rabaa tan hadda dhacaysa maadaama ay tahay doorasho dadban in ayda lafteeda waqti la siiyo waxay khilaafaad oo jira la xalliyo. dadkii waxaad moodaaba patientig dhan waa ka dhamaaday. nin walba wuxuu ku leeyahay baashii waqtigeeda waa la gaaray waa in la qabtaa. infrastructure logistic dhaqaale wixii ma jiraan. intaa waxay noogu dhamaatay barnaamijkeena qaybtiisii koowaad intaynu mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.